nimanka magac way ka horsiman yihiin laakiin waa kala heer. Qisadan ila dhigeyso hadaa aragtid ra'yigaaga fiican ka bixi. Waa qisadii ugu xanuunka badneed markaa sheega indhahayga dhan ilmo ay buuxisay qalbigaygana kala goysay. Hadda calool jilcan tahay walaal adkayso wuxuu ku bilaabanaysaa sida tan. Wuxuu dhahay hooyaday markii la furo oo ay naga tagtay aabahay wuxuu nagu qasbay in aan gooyno oo aanan booqan. Kadib waayaha isdaba yaala ayaa iloosiyay hooyaday. Isheeduna waxay la qabsatay xaaskii aabahay oo ahayd mid aad u naxariis daran iyo walaalkay iga weyn oo banaanka ku soo dhix jiray habeen ama 2 habeen toddobaadkiiba. Walaalkay uma aabiyeeli jirin ciqaabta sugaysa markii uu guriga dib ugu soo laabto. Marka si xun loo dilay ayuu iska dhigi jiray qof miir daboolan yacni oo sooxay si uusan u sheegin meeshii uu ku maqnaa. Waxaan ahaa saaxiibka kaliya oo leeyahay walaalkay. Sidaas ay tahayna maalin qura iimoosan sheegin halka uu ku soo dhix jiray. Habeenada qaar waxaa laga yaabaa inuu i arkay fulay hooskiisa ka orda si aan lagu amaansan karin. Waxaan xasuustaa maalin oo maqnaashihiisu walaalkay oo qaatay 3 maalmood ka badan. Aabahay xanaaq dartiisii ayuu la dilaaci gaaray. Xaaskii aabahay qabin sidii ugu dilaysay wuxuu asigana go'aan ku gaaray in oo walaalkay 2 cad u kala jaro. Muddo saacad kadib waxay indhahayga qabteen walaalkay oo dhulka yaala dhiigna oo ku qulqulayo. Markaas ayaan ogaaday kelinimada igu soo foodka lah in ay asigana iloosin doonto. Meesha iga taabatay ugu xanuunka badneed waa tanaa walaal ila arag. Wuxuu dhahay habeen qabow xun jira ayaa barkintiisii hoosteedii waxaan ka helay fariin cabsi badan oo leh sii wad booqashada hooyadeena. Indhaha ayay beeshay codkeena ma kala saari karto ee xanaaneynteedii sii wad xitaa haddii lagu ciqaabo hana u sheegin in midkeeni oo aakhir u galbaday. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waa qisadii aad iyo aad ii taabatay alxamdulillah haddii hal mar iga soo baxday. ra'yigaaga ka bixi qisadan.